halkani waa CST fi xaruntiisa magaalada Muqdisho waxaan ahay Suleymaan Qasiman Cabdi qodobada warka ugu doorqaadana waxa kamid ah siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka oo xariga ka jaray xafiiska hubinta tayada dhismaha qalabka wasaaradda howlaha guud wasiirka gargaarka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulan la qaatay hay'adaha gargaarka maamulkaasi wajiga labaad ee shirka wada tashiga himilada oo ka dhacay magaalada Muqdisho maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo qalab ku wareejiyay dhalinyaro tababar loo soo xiray iyo madaxweynaha Puntland oo magacaabay taliyaha ciidamada madaxtooyada iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ku soo dhawaada warkii oo dhan siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka oo xariga ka jaray xafiiska hubinta tayada dhismaha qalabka ee wasaaradda howlaha guud faafahinta warkaasi waxa inoo hayaa Cabdiraxmaan Timcade siyahayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xariga ka jaray xafiiska hubinta tayada qalabka dhismaha ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay ujeedka inuu yahay in la soo celiyo tayadii uu lahaa jiray dhismaha laguna hubiyo halkani maanta waxa farxad inoo ah inaynu si rasmi ah u daahfurno qalabkii iyo xafiiskii dhowrista tayada dhismaha oo shaqo fiican ka qaban doona ujeedadiisuna tahay in la soo celiyo tayadii dhismuhu uu lahaan jiray la tijaabiyo la hubiyo la jeegareeyo kadibna ay ama ha noqoto highwayada iyo wadooyinka ha noqoto guryaha ha noqoto qaybaha kala duwan ee dhismaha dhamaantii ay sidaa ku hawl galaan wasaaraddu hormuud bay u tahay infrastructure-ka ama dhismaha dalka guud ahaan hadday guryo tahay iyo hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay xafiisyada dawladda iyo goobaha kala duwan oo adkaysiga iyo difaaca dhismuhu inuu tayo leeyahay waxa wax ka taraya dabaylihi hadday dhacaan roobab iyo fatahaada hadday dhacaan sida waxyaabaha kale oo ay qarax hadduu dhaco gudheeda inuu u adkaysanayo cadceedda iyo qorraxda u adkaysanayo waa arkaynaa dhismayaashii 1991 ka hor la dhisay sida weli adkaysigoodu uu yahay u adag yihiin kuwii dambe ka dambeeyay waa suurtagal in kuwa badan oo fara badan tayada iyo quality ay leeyihiin laakiin heerka caalamiga ah tayada dhismaha inaynu maanta daahfurno qalabkii dhamaantii waxyaabaha kala duwan ee dhismaha ka kooban yahay lagu hubinayay tayadooda iyo heerkoodu nooca uu yahay lagu dhowraayay inaynu haysano meelaha kale ay tahay inay ka shaqeeyaan ay ka furmaan ay ugu horeyso dekada xamar iyo airportka waa kala shaqeyn doonaa wasaaradda inay xarumihii muhiimka ahaa ay ku yeeshaan si loo dhaqaajiyo loo dhiirigeliyo oo ay shaqadu meel kasta uga socoto u taabo gasho maanta laga bilaabo waa inoo furan yahay xafiiskii qalabkii dhowrista tayada waa haysanaa wasaaraddu way ku hawlgelaysaa shacweynaha Soomaaliyeed iyo shirkadaha dhismaha waxa u soo jeedinaynaa inay wasaaradda kala shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan inaynu dhamaanteen dhowrno tayada dhismaheena aynu ku noolaanayno aynu xafiisyada ka dhiganayno aynu bilicda magaaladeena qaybta weyn ka noqonayo iyo magaalooyinkeenaba iyo dalka guud ahaan waa mahadsantihiin si rasmi ah ayaa loogu furan yahay xafiiska iyo qalabka dhismaha ee dhowrista tayada dhismaha oo ay wasaaraddu ku shaqeyn doonto meelaha kalena waa ka wada shaqeyn doonaa insha Allah dhawaan ayaa xilka ra'iisul wasaarenimo si ku meel gaar ah loogu magacaabay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar asagoona dhowr goob xariga ka jaray muddada uu joogo Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timcade muuqaal maqalbaahiyaha City magaalada Muqdisho dhanka kale wasiirka howlaha guud ayaa faahfaahiyay xarunta maanta xariga laga jaray iyo waxa ay qaban doonto maanta waxaan halkan ku soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha Mahdi Qadar His Excellency wuxuu noo furayay quality control ama tayadhoorka xafiiska tayadhoorka wasaaradda howlaha guud ayuu noo furayay runtii aad bay sharaf noogu tahay in xafiiskaas la furo ra'iisul wasaaruhu waxaan kaloon tusnay howlihii kale ee wasaaraddu ay runtii ku mashquulsanayd oo uu ka mid yahay xafiiska National Highway Authority-ga ama hay'adda ama wakaaladda jidadka waxaan kaloon ra'iisul wasaaraha warbixin ku siinay waxa loogu yeero project coordination unit oo wasaaraddu ay hadda samaysay oo ka shaqeyn doona mashaariicda
qaranka oo dhan waxaan ra'iisul wasaaraha maanta sidoo kale uga sheekaynay oo warbixin aan ku siinay in maaragtay aan ka shaqaynayno wakaaladii handasaha iyaduna meel fiican ay noo marayso ayaan warbixin maaragtay ku siinay hawshaasu si fiican bay maaragtay maanta noogu hirgashay mudane ra'iisul wasaare warbixintii aan ku siinay dhammaan iyo sida aad nooga ajiibtay aad iyo aad baad maaragtay ugu mahadsan tahay hawshaan aad maanta noo furtay shaqadii in la guda galo oo la bilaabo oo ummadii loogu shaqeeyo iyo dardaarankaaga ayaanu ku shaqaynaynaa wasiirka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulan la qaatay hay'adaha gargaarka maamulkaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa Cumar Yuusuf iyadoo wali ay taagan tahay saameynta ka dhalatay fatahaada webiga Shabeelle ee deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxa magaalada Baydhabo kulan qadka online-ka ah uga qayb galay wasiirka gargaarka dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush oo sheegay in kulanka inta uu socday waxyaabo badan looga hadlay wasiirka ayaa sheegay in kulanka ay qayb ka ahaayeen hay'adaha kala duwan ee UN-ka UNHCR IOM WFP UNICEF WHO iyo UN-OCHA waxaana uu sheegay in gabi ahaanba hay'adahaasi ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada gurmadka kala duwan ee la gaarsiinayo deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose ee saameynta ay ku yeesheen fatahaada webiga Shabeelle maanta bisha Agoosto 10keeda sanadka 2020 waxaan shir ku qabanay online ah hay'adaha UN-ka ka shaqeeya koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda arrimaha humanitarianka iyadoo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed shirkaas waxaa looga hadlayay meesha ay marayaan gurmadka arrimaha fatahaada ee gobolka Shabeellada Hoose oo saameeyay bulshada ku nool degmooyinka Afgooye Walaweyn Marka iyo Owdheegle sidii gurmad loo gaarsiin lahaa hay'adaha waxay soo bandhigeen ilaa hadda gurmadka ay gaarsiiyeen waxaana aad looga wada hadlay sidii arrimahaas loo dardar gelin lahaa shirka waxaa nagala soo qayb galay hay'adaha UN-ka UNHCR hay'adda IOM hay'adda cuntada adduunka WFP hay'adda UNICEF oo dhallaanka iyo hooyada uurka leh ku shaqo leh hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo hay'adda UN-OCHA ilaa hadda gurmad badanaa gaaray dadka deegaanadaas waxaana dowladda ay u ballan qaadeen in gurmadkaas la sii dejin doono insha Allah waana aadan ugu faraxsanahay ilaa hadda shaqada la qabtay inkastoo dadkii weli u baahnay gurmadka aan la wada gaarin laakiin shaqada si fiican ku socota insha Allah shirarka iyo abaabulka awadana waa la sii dardargelinaa insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay dadyo fara badan ayaa guryahooda ooga barakacay sababo la xiriira biyo ka soo fatahay webiga Shabeelle ee saameyn ku yeeshay dhammaan beerihii ay ka falinayeen qaybo ka tirsan gudaha gobolka Shabeellada Hoose Cumar Yuusuf Maxamed raadiyaha telefishinka City Muqdisho wajiga labaad ee shirka wada tashiga cimilada oo ku furmay magaalada Muqdisho wajiga labaad ee shirka wada tashiga isbeddelka cimilada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaas oo ay ka qayb galeen wasiirada beeyada maamul goboleedyada agaasimaha guud ee agaasinka isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Axmed Yuusuf Axmed ayaa marka hore ka hadlay wadamada LDC-ga oo Soomaaliya ka mid tahay ama wadamada Least Development Countries-ka waxa laga sugayaa oo United Nations Convention on Climate Change uu ka sugayaa waxa la yiraahdo NDC update waxa weeyaan inaad soo sheegtid shanta sano ee soo socota for example hadda 2020 ma ku jirnaa 2024 ka ama 2025 ka shanta sano maxaad ka qabanaysaa ama 25 sano soo socota arrimaha isbeddelka cimilada annagoo raacayna WHO guidelines-keeda caafimaadka aan report-ka qaybtiisa koowaad halka ku daafurnay kan waa kii labaad dhankooda qaar ka mid ah wasiirada bii'ada maamul goboleedyada ayaa soo dhaweeyay shirkani iyo waxyaabaha looga hadlayo fikirkeeni aqligeeni iyo garaadkeeni waxa la rabaa inaan isku geyno qaabkii lagu aasaasi lahaa wax la yiraahdo environmental policy of Somalia markaas kadib ayaa wacyigelintii kale oo dadweynaha fahamkayga ka qabaan environmental policy-gi ayaa lagu xijin karaa heerba laga soo saari karaa waxa dhaqan galay dalka iyo dalka matali kara ayaa laga soo saaray anoo ka wasaarad qorsheyn ahaan kulli anaga doorkayga waxa weeyaan inaanu tilmaano waxyaabaha muhiimka inoo ah iyada loo kala horeysiinayo wasaaradihii waxa jooga shaqada tooska ayagu qabanayay oo hadda wax yar ka hor
projectorka laynoo saaray oo layna tusay liiskoodii iyo dadka maxaa la yidhaahdaayey actually shaqadan uga shaqaynaya insha allah anaguna waxaan idinla garab taagnaan doonaa haddii aan la yidhaahdo bal baahiyaha iyo wixii documentation aad u baahan tihiin iyo wixii hore looga qabtay maxaa la yidhaahdaayey ama riboodda laga soo saaray hadday noqoto inaanu anaguna la garab taagnaano tiimka qoraya iyo maxaa la yidhaahdaayey tiimka ka shaqaynaya waa la socotaanoo waddankeennu yacni hadda wuxuu usoo tilaabsanayaa inuu dabaqo istaraatiijiyadda adduunka isku raacay 2030 in la gaaro yacni taasoo tilmaamaysa in yacni SDG-dii lagu gaaro sustainable development goalska oo tilmaamaysa in dadku inay gaaraan isku filnaansho cunteed isku filnaansho horumarineed marka anagana taasaan qayb ka nahay waxaan rabnaa inaan sameyno qaabkan ugu yaraan in fiican uga qayb qaadan lahayn wax loo yaqaano zero hungerka ama in la baabiyo gaajada lana yareeyo faqriga. Shirkani ayaa socon doona muddo 2 maalmood ah waxaana inta uu socdo looga hadli doonaa saameynta fatahaadaha dalka. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qalab ku wareejiyay dhalinyaro tababar loo soo xiray. Warkaasi waxaa inoo sii dheereynaya Maxamuud Daacad. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Aadan Suufi ayaa sheegay qalab shaqo ah in ay ku wareejiyeen dhalinyaro tababar loogu soo xiray gudaha magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay in dhalinyaradan ay isugu jiraan qaar qaxooti ku ah magaalada iyo kuwa deegaan ah. ma sharafnay geekamaha gabagabaayahayna barnaamijkii shaqo abuurka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wadi muddo 2 bari ah oo la baray dhalinyarada magaalada Baydhabo oo in iska jiraan dad IDPs ama dadka habarkacay qaxootiga iyo Ritaanis iyo dadka oo iyona deegaanka oo linka qoy deegaanka deganay macnaha iyo dad IDP ah ayaa la tababaray muddo 2 bari ah tababarkaas geekan in gabagaboobay dadkana meel baray sidii in ka shaqaysan lahaayeen dhismada qaab engineer iyo meel raafuundanimo iyo walaal sala baray meel la ka wareejiyay lan walba walay ka shaqaysan lahaay oo qalab ah ya geek la ka wareejiyay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo oo kaalmeeyay barnaamijkaasi oo gacan weyn ku jeysatay hay'adda UN Habitat marka iyada ma santiin may rajaayay dhalinyarada oo baratay xirfadoon iyo inta ka shaqaysadaan 100 qof dad 100 qof oo dhalinyaro badan magal iyo bilaan iska jiraan insha Allah may rajaayay intii oo ku faa'iidaan insha Allah. dhalinyaro badan ayaa shaqo la'aan ku ah xilligan gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maxamuud Daacad, raadiyaha TV-ga City, Muqdisho. Guud ahaan warka habeenimo ee CSTV waa nageyntaas. Waxa ay la socodsiinaysay anigoo ah Suleeqa Qasiman Cabdi. Dhanka kaamirada iyo farsamada Maxamuud Daacad. Warkani warka xigeynta aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.